Assalaamu calaykum. Video waxaan iskula sameynaynaa full screen touch slider anagoo isticmaalayna HTML CSS iyo vanilla JavaScript. Touch sliderkan wuxuu ku shaqeynayaa move events, sidoo kalena wuxuu ku shaqeynayaa touch events oo markii taleefanka loo isticmaalayo oo touch events taleefanka ku shaqeynayo oo dee aad ku fiirino iPhone 6 Plus oo si wide lagu shaqeynayo, sidoo kale markaa ku fiirino iPad-ka absolutely okay ugu shaqeynayo. Markaa u nimaano sawiradan iyo dhammaan koodka waxaa soo geliyay linkii description-ka oo markaa ku dhufato ku geey doona halkan. Koodka meeshaan ka download gareysan kartaa, sidoo kale sawirada folderkan ku jiraan oo mid kasta oo markaa soo download gareysato kadib aad isticmaali kartaa sawiradan. Marka sidoo kale markaa download dhahanaysid meeshaan ku dhufanaysaa ay kood ku qoran tahay, then waxaa leedahay download asrar file oo kugu soo degaya. So marka project-kan asla sameynayna maanta asla sameynayna marka project-kan okay. Marka file-keen wuxuu nagu furan yahay Visual Studio. Saddexda file inoo sameysan waxaa waaye file HTML inoo sameysan, mid CSS iyo mid JavaScript oo wada faaruq waaye empty ah. Sidoo kale meeshaan folder inoogu jiro oo sawirada inoogu jiraan, sawirada inoogu diyaarsan yihiin macnaha. Marka qaybta HTML ka bilaabeynaa. File-keena magaciisa waxaa ka dhiganaynaa touch slider. File-keena waxaa ku soo xiranaynaa oo CSS-ka style then waxaan ku xiranaynaa marka file-keena JavaScript-ga up.js. okay, marka labadina file ay noogu xiran yihiin browser-ka markaa ku baxsanaynaa live server. okay, marka hadda gudagalaynaa marka containerkan waxaan ka dhiganaynaa midka guud elementsken dhan ay galayaan. Sliderka marka waa elementiga ee sawirada iyo dhammaan waxayna aan gashan lahayn. marka sawirka markaas ciwaankiisa wuxuu yahay product name adana. hadda waa ka bedelaynaa marka then sawirkaa soo gashanaynaa marka image 1. okay, then meesha marka waxaa ugu baahannahay icon ugu baahannahay marka oo stars ah. marka iconkaas waxaa naga sahlaya marka point away some website la yiraahdo. marka haddii aadan akoon ku lahayn wuxuu u baahan yahay free waa inaad akoon ka samaysatid bas, kadibna aad linkigooda kusoo qaadatid oo aad isticmaashid ilaa iyo kumanaan icons hadba nooca aragtid markaas. marka aniga akoon waa iga samaysan yahay point away some, keliya inaad soo qaato linkigooda. marka meeshaan ka soo qaadanaysaa kubkidkan soo qaadanaysaa marka tan waa iska xiri karnaa. waxaa ku xiranaynaa file-keena HTML-ka qaybta hidka dhexdiisa. then marka image ku horeeya soo gashanay. then marka hadda waxaa isticmaalaynaa starska inaan soo gashano i.first.df. markaas iconkaas magaciisa marka anaga waxaan ka rabnaa ilaa 6 icon aan ka rabnaa. shift alt hoose
5 xabo. dan qaybtan hoosena waxaan ku qoranaynaa markaas moralitygaas markaas qiimaha ku qoranaynaa markaas qiimaha waxaan ka dhiganaynaa h4 oo kale ku qoraysa 4 ku qoranaynaa dollar sign-ka waxaan ka dhiganaynaa $300 oo kaleeto. dan waxaa hoos marsiinaynaa marka linkigeena waxaan leenahay marka add to cart marka intaana ku biisanayna ilaa iyo waxaa ka rabnaa 5 xabo kale 1 2 3 4 5 xabo seefa dhahna marka sawirada marka bedelaynaa midkan waxaan ka dhigaynaa image 2 midkan waxaan ka dhigaynaa marka image 2 midkan image 3 4 iyo 5 marka save markaa dhahna marka 5 sawir oo kala duwan inoogu jirto marka mid walba magaciisa sawir ku dambeeya iPhone waaye qiimihiisana waxaan ka dhigaynaa 2,500 aan ka dhignay. sawirka afraad iPad waaye qiimihiisana waxaan ka dhigaynaa $1,000 oo kale. sawirka saddexaad aan fiirinaynaa hadda sawirka afraad sawirka saddexaad waa image 1 2 3 waa headphones aan ka dhigaynaa image 2 gana waxaa waaye airpods image 1 kana waxaa waaye shoes qiimihiisana waxaan ka dhigaynaa ilaa iyo $700 halka airpodska ku dhaafayaan 300. marka qaybta HTML ka ka dhex bixinaa qaybta waxaa u gudbaynaa CSS-ka waxaan rabnaa marka inaan soo gashano farta Google Pointers waxaan rabnaa farta la yiraahdo Open Sans Google Pointers daacad u qorto ku soo baxa soo galaysaa dan meesha search ah ku qoraysaa Open Sans waa tan ugu soo baxaysaa markaas هذا دهانينا أفرط بغل استحد بغل هي أفرط بغل با تمام waxaan kasoo qaadanayna linkii qaybta CSS kana ku xirano koobiya dhahanayna dan waa iska heli karnaa marka CSS ka faylkeena qaybta ugu koreysa bast ku dhahanayna dan marka wixii auto margin ah iska saarayna wixii baadin wato box size in border box ka dhiganayna dan marka HTML ka body qaybteeda soo marka farta soo qaadan Open Sans waaye farta siinayna point family ina capital ku bilowdo open ta Sans kana sidoo kale ina capital ka dhigtid waaye xaraf koowaad dan farta labaadna waxaan ka dhiganaynaa sans serif in background waxaan ka dhiganaynaa 333 oo dagdag camal ah marka fartan waxaan ka dhiganaynaa color wayda ka dhiganaynaa
widthka iyo heightkana waxaan ka dhignaynaa 100%. line heightka waxaan ka dhignaynaa 1.7. spaceka u dhexeynayo qoraalka markaas lineska spaceka u dhexeynayo 1.7 aan ka dhignaa markaad save dhahno ay kala durkayaan xoogaa. waxaa kaloo u baahanaa waxay tahay inaa marka aan ka dhigno overflow hayrina inaan dhahno si markaas askaga qarin macnaha in oo loo sameeyo scroll bars hoose oo hadda markay overflowga caadiga auto u yahay waxaan awoodnaa inaan soo scroll down gareyno ilaa iyo hoos soo u fiirin macnaha pagekeena intuu leeyahay. marka maadaama anaga ka rabno one page one side ka rabno overflowga hayrina dhahna marka waxa ku soo baxaa markaas scroll bars hoose u dugtid intaan ku akaana marka waxaan tagaynaa containerkeena waxaan sameynaynaa marka inaan heightkiisa ka dhigno 100 viewport. markaas viewport waxaa waaye shaashad inta la egtaa dhererka markaas intii shaashada la egtaa inaan wada siino containerkeena oo containerkeena midkaan waaye ay noogu jirto dhammaan elementiska. marka waxaan ka dhignaynaa displaygiisa inaan ka dhigno marka hadda saasaan u soo bandhigoyaa inaan saasaan ka dhigno macnaha jiif inaan kugu soo bandhigo display line flex line soo markaas save dhanaad airports mudin oo qaybtan kala aadeen oo hadda meeshaan wuxuu noogu sameynayaa saa ka arkirtay marka wuxuu ka dhigay geesgees oo ka dhigay oo isdaba dhigay macnaha marka isagana waxaan sameynaynaa overflow waa ka xireynaa overflow hayrina leynaa marka isagana si aan loo arkinba sliderka marka waxaan siinaynaa maxsasate inaan ka dhigno isagana 100 viewportiga intuu leeyahay widthkiisana aan ka dhigno 100 widthka intuu leeyahay markaas shaashada widthkeeda intay la egtahay inaan siino hadda markaas save dhahna marka iyadaa wada qaadatay qaybtan. waxaan kaloo sameynaynaa marka inaan kusoo bandhigno fluxes display fluxes alena marka wuxuu ka dhigaa marka qaab oo row ahaan oo ugu soo bandhigaa marka waxaan leenahay flux direction ka bedelaynaa flux direction column aan ka dhiganaynaa hadda markaas save dhahna marka uu soo bandhigaa marka waxaan rabnaa inuu isku wada aadaan qoraalka iyo waxa dhan inaan center ka wada dhigno waxaan marka alignate center justify content center vertical iyo horizontal ay dhexda loo keenaa macnaha jiif joog ahaan dhexda loo wada keenaa markastoo kale waxaa ka rabnaa markii falaarta lagu dul aadiyo hadda markii kaarsalka lagu dul aadiyo falaar caadi ku muuqato marka waxaa ka rabnaa markii lagu dul aadiyo inay noqoto gacan oo kale ama wax la qabanayo oo kale na ka dhigno waxaan leenahay marka kaarsal grab oo hadda markaa ku dul aadino waxay noqonaysaa gacana soo baxayso sidoo kale waxaa ka xireynaa in la select gareeyo marka hadda waa la select garey karaa pagekeena markaas marka waxaa sameynaynaa marka inaan select aan ka xirno leenahay marka user select none hadda marka wax ma select gareysmaa mar hadda lagu soo jiido cursor-ka wax ma select gareysmaa sidoo kale sawirkan qaadma inaan ka xireynaa qayb javascript ugu xireynaa in sawirka saan looga qaadi karo marka waxaa u imaanaynaa marka barteena header 2geena waxaan ka dhigaynaa font sizekiisa ilaa iyo 2.5 prim sidoo kale h4keena oo ah pricekan isagana waxaa siinaynaa font size
point size-kiisa waxaa ka dhiganaa 1.3 rem oo kale. sidoo kale waxaan rabnaa inaan starskan afartooda bedelno iyo size-koodaba. waxaan leenahay I oo taaga namekiisa ahay. kalarka waxaa ka dhiganaa gold. so marka hadda kalarkiisa gold oo qaatay, then waxaan u gudbaynaa qaybta linkiga. waxaan ka dhiganaynaa kalarka waayadaa ka dhiganaynaa. text decoration nanaan leenahay oo xariiqada oo hoos oo by default linkiiska u wataan nanaan dhahnay. so marka background u sameynaynaa. marka backgroundgiisana waxaan ka dhiganaa gold. padding u sameynaynaa. paddingkiisana waxaan ka dhiganaa 10 px oo top iyo down ah iyo 20 px lefty iyo right ah. point size-kana waxaan ka dhiganaynaa ilaa iyo 20 px. okay, marka waxaan ku fiirinaynaa point ku fiirinaynaa telefonka. marka sawirkana sidoo kale size-kiisa bedelaynaa. sawirka waxaan ka dhiganaynaa marka slider img. access width-ka waxaan ka dhiganaynaa 100%. access height-kana waxaan ka dhiganaynaa ilaa iyo 50%. haddii aan fiirino shaashada markaas lagu weyneyn karo. height-ka waxaan ka dhigaynaa ilaa iyo 60%. marka max height-ka 60% ka dhiganaynaa. okay, telefonka ku fiirina marka looks good. marka xoogaa waxaa space u dhexeysiinaynaa starska iyo kan. horta waxaa u sameynaynaa margin bottom, margin top iyo bottom labadaba ka wada gelinaynaa si markaas starska iyo tukaartiga u dhexeyso space fiican. 10 px top and down ah. okay, looks good. marka hadda okay, qaybteena CSS waxaan maleynayaa in aftaa marka intaan. sidoo kale meeshan waxaan ku sameysanaynaa galaas hadda u baahnaan doono grabbing la yiraahdo. waxaan ka rabnaa macnaha hadhow markii lagu dhufto in markaas cursor-ka hadda gacan waayo, laakiin markii lagu dhufto waxaan rabnaa inuu wax qabanayo camal gacanta in lasoo laabi karo, macnaha in laga dhigo inuu wax qabanayo. grabbing cursor-ka waxaa u bedelaynaa marka grabbing. okay, marka hadhow arki doonaa cursor-ka qaabka uu isku bedelayo iyo grabbing-kan iyo graph-kan farqiga u dhexeeya hadhow arki doonaa. marka CSS-ka wixii hadhow ugu soo baahno marka JavaScript ku jirna u soo noqon doonaa. marka hadda waxaa u gudbaynaa qaybteena JavaScript-ga. marka hore soo qaadanaynaa container-keena document container. mid kale oo baahna waxaa waaye slideskeena. so marka slideskeenana query selector, maadaama slideskoos hal xabe ahayn ku badan yihiin query selector oo la leenahay slider. marka waxaan rabnaa qaab array camal inaan u isticmaal rabnaa. marka saan waxaa waaye HTML collection waa marka si aan ugu bedelno array ahaan sida ugu bedelno. marka waxaan sameynaynaa inaan dhahno marka array from inaan meeshaan gashano. marka hadda maxaan lahay toole markii
oo la soo qabto slideskan oo dhan as HTML collection doon waxaa loo bedelay array ka bacdi waxaa lagu shubayaa variable-kan slideska marka waxaa sameysanaynaa dhammaan variablada u baahnaan lahayn hadhow waxaa u baahannahay dragging mid walba wuxuu qabtaan waa arki doonaa false waa leenahay boolean waa true and false midkooda noqonaysaa bis haddii maanta aan sameyn lahayn led oo calaa variable baa led u sameyno waxaa ka fudud inaan halka dhahno halkan leda isla wada isticmaalayaan starting position 0 ka dhiganaynaa saaranti translate 0 and preference translate equal 0 mid walba wuxuu qabtaan hadhow arki doonaa animation id equal 0 saaranti index equal 0 marka slideskeena marka waan goreynayna for each oo isticmaalayna midkan waxaan ka rabnaa calaa slide midkan kalena indexka markaas uu maraayo array function aan isticmaalayna marka waxaan rabnaa marka in waxa koowaad qabanayno waxaa dhalan in sawirkan saan loo qaadi karo marka inaan ka saarnaa rabnaa marka waxaan sameynaynaa const slide image wuxuu leeyahay slide dot query selector image img slideka markaas la joogo marka slideskan oriijkan calaamada usoo loo gurana marka slideka markaas la maraya sawirkiisa meeshan lagu shubayo slide image then slide image-kana waxaan ku xiranaynaa event listener dot add event listener alena event listener-kan waxaa waaye drag started in macnaha jiiditaanka markaas la bilaabo drag start haddii markaas sawirka markaas la jiido functionkana marka u gudagalaynaa arrow function dan waxaan leenahay dot prevent default marka hadda fiirinayna sawirka xirnay hadda marka ma qaadnaa marka hadda sawirka uu qaadmaya laakiin hadda sawirka ma qaadmaya marka waxaa u gudbaynaa marka in doojaska marka ku xirno in markii taleefanka markaas iyo markii oo laptop versionka caadiga kala duwan yihiin marka doojaskeeda marka labadaba si ugu wada xirno sameynayna marka tog events iyo mouse event marka waxaan sameynayna slide event listener ku xiranayna listener oo tog started mid walbana wuxuu qabto arkaynaa markaas function markaas oo la rangareynayo markii tog startgan uu bilowdo index saddexda marka rabnaa ilaa 3 xabo shaashada wax yar weynaysanayna midkan kalena waxaa waaye togindi functionka kalena waxaan ka dhiganaynaa togindi ma u baahan markaas wax argumenti ah midkan waxaan ka dhiganaynaa touch move aan ka dhiganaynaa to functionka markaas la keenayo wuxuu noqonayaa
touch move intaana copy dhaanayna marka mouse fintiska marka way kala duwan yihiin mouse down midkan kale waxaa leenahay mouse up touch indi sax waay midkan kale waxaa leenahay mouse leave touch indi waa isagana mid kale ku darsanayna afraad oo markaas ah mouse move kan kalena waxaa waaye touch move okay marka mid walbana waa sharxaynaa markaas touch startigan waxaa waaye mar kasta oo shaashada taabano touch start waa markaas oo maxaa lalahay toolaa taabanay functionkana markaas aanoo ka ay weli aanoo samaysanen functionadan oo dhan weli manoo samaysano hadda ka bacda sameynayna marka touch indigan waxaa waaye markii laga qaado markii la taabto shaashada oo laga qaado touch indi waa markaas midkan kalena waxaa waaye touch move waa markaas oo shaashada intaa ku dul socono oo saan u wareegayno touch move waa markaas sidoo kale markii oo mouse ahaan mouse downka waxaa markii lagu dhufto ama shaashada markaas la taabto touch start la mid tahay markaas mouse up waxaa waaye markii kliga flat laga qaado markii klig la siiyo mouse start waaye hadii mouse down waaye markii klig laga qaadana waxaa waaye mouse up waaye mouse leave sidoo kale waxaa waaye markii oo cursor-ka fara laga qaado waaye mouse move waxaa waaye markii saan shaashada ugu dul socono waaye marka mid kasta waxaa ku arkaynaa in action ku arkaynaa marka saddexda function samaysanayna waxaa marka function start index qaadanaysa labadan kalena midkan kalena waxaa waaye touch indi midkan kalena waxaa waaye touch move marka mid kasta marka si aan u aragno waa soo bandhigaynaa marka console log midkan function u soo celinaa return aan leenahay markaas function if inti markaas wado if intigooda wuxuu yahay markastoo touch start lagu dhuftaa markaas wixii if intiisoo dhan wuxuu maxaa lalahay toole oo ku kaydinaa functionkan marka functionkan maadaama anagana index ka soo qaadana indexkan uu kan yahay oo wax if inti markaas u wadan laakiin functionkan wuxuu soo celinayaa if inti soo celinaya marka if intiga midkan gudihiisa ku sii dhex furanayna marka xogaa marka ku cusubtahay javascriptiga wareer badan leedahay oo si advanced u shaqeysa marka waxaa leenahay console.log startiga markaas lagu guda jiro si aan usoo bandhigana mid kastaba touch indigana waxaa leenahay markaas console.log indi midkan kalena waxaa leenahay console.log move so marka si aan u aragno mid kastaba qaabka u shaqeynayo markaas heef dhahno haddaba iyadoo cursor-kaas aan usii dul wadno move ka socdo indiga markaas dhaca markaas ku dhufano start move indi in mobile markaa ku dhufano start waaye indi move-kana markaas way sii shaqeynaysaa marka si aan u shaqeysiino waxaan isticmaalaynaa marka variablekan ugu horeeya oo isdaraagin ah waxaan leenahay marka start markii la joogo isdaraagin true oo ka dhigaynaa markaas indiga markii la tagana waxaan ka dhigaynaa false markaas
falso marka meeshan hadda markii oo markii hadda kaasarka dulgeeyay move ku iska shaqeeya muddo anagu markaas ku dhufin anaga waxaan rabnaa marka move ku shaqeeyo markii lagu dhufto oo marka kaasarka la wado kadib inuu move ku shaqeeyo laakiin sida caadiyan iyadoo la iska wado ayuu move ku shaqeynaa marka waxaan leenahay marka kaliya move ku inuu shaqeeyo haddii isdaraagan uu true yahay if isdaraagan equal true inta dhiileen waxay la mid tahay marka isdaraagan inaan dhahno bis hadduu false loo gudbaa hadduu true yahay markaasna waa loo sii gudbayaa if statementga so marka waxaan leenahay hadda console.log move hadda markaa save dhahno marka hadda kaasarka dul geeno waxa bedel dhacaya marka click ku siino start iyo move marka sii wadno marka move ka doo shaqeynaa marka qayb taleefankana sidoo kale move markii click la siiyo kadib oo shaqeynaa marka okay mid kaliya marka rabnaa waxay tahay horta marka hore waxa iska xireynaa hadda markii oo inform marka hada lagu jiro markii raad click la taabto waxa noo soo baxayo option menuga marka si iskaga xirno waxaan rabnaa markii raad click lagu siiyo inuu wax menu uusan soo bandhigin marka menuga marka waxa iskaga xireynaa halkaan tageynaa marka waxaan leenahay window dot context menu on context menu window dot on context menu waxay la mid yahay leenahay action event markaas then waxaa leenahay event dot prevent default sidoo kale waxaa leenahay event dot stop propagation save dhaanayna marka hadda marka right click dhaano wax shaqeynaya malahan error oo noo soo sheegay stop propagation bida caadi ka dhigayna stop propagation okay still it is sheegaya inaa si khaldan u qornay stop propagation-ka qaabka khaldan u qornay wuxuu yahay inaa isku xijinay stop سنة عمرك سيد سحدة أجعلها سو مركات مركات كلك دهنا الفلسطين والرايد ومركات سحيهم دن وحاوجد بينا يعني مركات هذا مركات استوى كل كوسين مركات موف دهنا وكذا مركات كل كوسين وحواي توج ستارت واي مركات سيدين توجن دواي انت موف جرين انه حواي توج موف مركات marka waxaan rabnaa inaan ogaano markii shaashada qaybta kaliya looga siiyay inaan ogaano rabnaa markaas si markaas aan u sameeyno sliding-ka si aan u sameeyno علينا marka starting position-ka wuxuu la mid yahay leenahay marka si lagu ogaado markii la joogo mobile view markii la joogo way lagu ogaadaa in laptop view markii la joogana way kale lagu ogaadaa marka waxaan sameeynaa horta inaan fiirino markaas console.log event dot type dot includes mouse so midda marka waxay inoo soo celinaysaa true and false midkood ayay inoo soo celinaysaa
true way soo celisay markii oo mobile-ka lagu dirana waxay soo celinaysaa false oo way kala duwan yihiin markaas midkaana marka waxa waaye waxaa ku qiimeynaynaa marka waxaa leenahay haddii eventiga uu markaas uu mouse ku jiro waxay la mid tahay markaas in oo markaas ay qaybta laptopka tahay uu mouse kaliya lagu siiyo haddii markaas uu maxaan lahaye tole mouse ku jiro markaas waxaa fahmeynaa in qaybta mouse markaas la joogo marka si labadaba waxaan rabnaa markay tahay in mobile-ka markii kaliya looga siiyo markii laptop kaliya looga siiyo inaa hal variable ku shubno marka waxaan leenahay waxaa isticmaalnaa ternary operator wax la yiraahdo oo logic if statement oo short line loo soo gaabiyo ah if statement oo short line loo soo gaabiyo ah marka qaabkii u qoran tahay waxay tahay start position wuxuu la mid yahay leenahay event dot type dot includes mouse على سؤال صارنا marka calaamada markaas saarno waxaan leenahay haddii markaas oo eventiga typekiisa hadii ku jirto mouse marka waxaan isticmaalaynaa event dot page x oo aan ku ogaanayna markaas vertical anaga waxaan ka rabnaa qaybtan width oo kaleento qaybta shaashada qaybta loogu dhiftay inaan ogaano marka page x saasaan waaye waayadana saasaan waa marka oo horizontal iyo vertical ay kala yihiin marka waxaan rabnaa qaabka lagu ogaa karo in laptop viewga wuxuu yahay in pagekas la isticmaalo haddii markaas uusan ku jirin event type hadduu markaas mouse ku jirin waxay cadda markaas in telephone loogu dhiftay oo qayb telefonka markaas lagu dhiftay marka waxaan leenahay event dot touches 0 dot waxaan leenahay marka kaleante x then save aan dhahnayna marka start positionkeena marka si aan u fiirina markaas aan soo bandhigayna console log start position save marka hadda dhahno shaashada marka meel kasta u dhufan oo arkaynaa marka 29 qayb kasta markaas u dhufan shaashada oo arkaynaa ilaa way sii ziyaada ilaa qaybtan kale aan tageena markaan kalena shaashada meel kasta u dhufan marka caadi u arkaynaa so mid labaad sameynayna waxay tahay marka intaan marka marar badan laga isticmaalayna marka way soo noqonaysaa marka waxaan sameynaynaa function oo ku shubanaynaa function-ka waxaan u baxsanaynaa get position x event noo baas gareynaynaa marka function-ka gadaal ku isticmaalaynaa gadaal ku qoranaynaa marka function get position x eventiga intaan aan leenahay intaan aan dhiganaynaa marka still sida u shaqeynaysaa marka no waxaa qaladnay console maana dhimaana soo bandhiganin si aan u jaagarayna marka still inuu shaqeynayo console log start position okay marka waa noo shaqeynayaa marka isticmaalaynaa waxa la yiraahdo request animation isticmaalaynaa marka hore horta animation id wuxuu la mid yahay leenahay request animation frame kan wuxuu noo qabanayaa waxay tahay browserku wuxuu u sheegayaa markaas in function-ka arabno ama wixii markaas dhex gashano in markaas qaab animation ah oo noogu soo celceliyo
marka browserka intaas u sheegaya waxaan leenahay marka qaab action ahaan u arkaynaa by example animation functionka markii la hadmaan sameynaa functionkan animation function animation aan wala bixinaa then wuxuu inoo soo celcelinayaa waxay tahay in markaas aad translate ku sameyno markaas slide-ka markaas meesha saaran aan translate ugu sameyno qayb CSS-ka marka uu translate ku sameynayo waxay tahay markii oo intii move lagu guda jiro inuu translate ka sameeyo rabnaa marka waxaa leenahay if haddii isdaraagin ay true tahay then waxaan sameynaynaa request meeshaan haddana ka dareynaa animation marka functionkan uu soo celcelinayaa recursion waa markaas uu inoo soo celcelinayaa functionkan marka wuxuu markaas uu translationka markaas sameynaya waxay tahay in markaas containerka dhan aad gelino translate style aan leenahay marka style dad waxaan leenahay marka transform meeshaana marka hore qaybta CSS-ka inaa transformka ever soo siino containerka waa kana transform waxaa waa macnaha CSS property waaye transform aan leenahay equal JavaScript isa u qorayaa meeshaan kula qabsada marka waxaan leenahay translate x bisa ka rabnaa translate x 0 markaan ku dhaafanaynaa sidoo kale transition aan gelinaynaa markaasi transitionkeena si aan u aragno marka translationka dhow micnuhu ku fadhiyo dhow agaa lagu darsanaynaa transform mid yaa leenahay marka translate x waxaan ka rabnaa marka saaran translate markaas saaran translate oo haddana waxaa waaye eber waaye hadda px marka leenahay gudaha ku qoranayna px-ka so marka functionkan isagana hal marka badan aan isticmaaleynaa line-kan hal marka badan aan isticmaaleynaa maadaama hal marka badan aan isticmaaleyno function aan ka dhiganaynaa translate set translate aan wala bixinaa marka functionkan banaanka ku sameysanaynaa function set translate intaasaan safe dhaanaynaa marka hadda wax oo isbedel ah ma jiraayo oo error jiro leeyahay animation is not defined maxaa qaladna markan animation ID meeshaan ka rabnaa animation kaliya dhahnay so had markaa safe dhahna marka animation is not defined is dead oo meeshaan ay ka tagin animationka au qornay animation aan karanaa markaa safe markaa dhahno okay markaa wax isbedel meeshaan kama dhacayo because of request animation soo ka ina indi u sameyno waaye markii indiga la joogo inaa iska cancelna waaye request animation frame-kan waa browserka u sheegna meeshaan inaa ku cancelna waaye waana request animation frame animation ID ga inoo hayo marka animation ID indiga markii la joogo iska cancelna so marka waxaan sameynaynaa si aan ugu shaqaysiino marka waxaan sameynaynaa in saaran translate-ka si aan u ogaano markaas ilaan meeshaan aan siinay oo
animationkiina wuxuu ku shaqeynayaa wax la soo celcelinaya waxay tahay in translate x-ka markii uu la gudbinayo saaran translate-ka inaad ever waaye si aan u sameyno waxaan leenahay marka hore waxaan u baahannahay saaranta position markaas inaan ogaano saaranta position wuxuu la mid yahay leenahay saaranta position markaas wuxuu la mid yahay get position x oo markaas la mid yahay position x-kan wuxuu ku shaqeeyaa waxay tahay marka inaan haysan event inaan usoo baas gareyno meeshaan event aan siinaynaa touch move-ka saaranta position x-ka hadda waa haysanaa marka saaranta position-ka waxaan u baahanaa marka saaranta translate oo midka oo animation-kan ku shaqeynaya ay tahay korna aan kusoo sameynay saaranta translate-ka marka saaranta translate-ka wuxuu la mid yahay leenahay preferious translate oo lagu daray saaranta position oo markaas laga jaray start position-ka okay marka hadda waxaa haysanaa saaranta translate-ka hadda waa haysanaa marka oo hadda markaas soo sakeyno oo bilaabaya animation-ka oo soo sakeynayaa okay marka request animation window it's not type of action error kale aan qabsaday oo modify toojindi oo meeshaan request ka dhan meesha la rabana cancel ka dhahno cancel animation meeshaan ka rabno indiga meeshaan request-ga start-ga meeshaan cancel ka waa okay hadda marka hadda qaabka uu shaqeynaya waxay tahay translate x-ka in hal mar wada boodaya marka translation-ka wuxuu sameynayaa marka qaab oo wuxuu ka dhigayaa macnaha animation ahaan uu sameynayaa marka translation-ka waxaan ku sameynaynaa transition-ka transform aan ku sameynaynaa waxaan rabnaa inuu 3.0.3 second inuu qaato rabnaa 3 millisecond inuu qaato easy out inaan ka dhigno so marka hadda qaab animation ahaan uu wada adaayo uu budbuudayo hadda farqiga u dhexeeya markaas la fiirino marka hadda ka saarno oo save dhahno video sayna horda markaas waxaan rabnaa qaab animation oo kale tartiibna u shaqeeyo sidoo kale waxaan rabnaa cursor-ka markii lagu dhufto in markaas uu isbedela ka diran marka hore waxaan rabnaa sawirka inaan yareeno sidoo kale gacanta hadda way fidsantahay inaan laabnaa rabnaa waxaan sameynaynaa marka hore start position-ka tegaynaa marka hadda touch start-ga tegaynaa marka hore waxaan sameynaynaa marka inaan ku darno class list inaan u sameyno markaas waxaan leenahay container dot class list dot add waxaan ku diraynaa waxay tahay class la yidhaahdo garaabin oo marka hore aan sameynay sidoo kale markii oo touch indiga markuu dhamaado hadda touch starting markuu dhamaado touch indiga dhexdiisa waxaan rabnaa inaan classkaasna ka remove gareyno container dot class list dot remove inaan kaga remove gareyna rabnaa classka garaabin marka hadda okay CSS-ka marka u tegaynaa garaabin waa kana cursor-ka inaan u bedelno dot garaabin okay marka CSS-kana ama magaca qaladna magaca galaaska cursor so right okay waxaan ka dhiganaynaa slidesk no slideska array waa hadda array ahaan u shaqeynaya container
waxaan qaladna marka sidoo kale imagena ku dareynaa grabbing img imageka marka waxaa leenahay in scale lagu sameeyo transform marka hore ka tagnay waxaa leenahay transform scale 0.9 oo by default 1 waa scaleka 0.9 markaa ka dhigno hadda ujeedo grabbingka class grabbing hadda uu shaqeynaya markii oo start touchka oo bilowda grabbingka waa lagu daraya markii touchkii uu dhamaadana grabbingka waa laga sii daynaya balse waxa shaqeynaya waxay tahay cursor-ka wax ka qaladnay cursor grabbing still did not work grabbingka waxaa ku darnay qaybta waxaa ku darnay oo sliderka ku darnay marka waxaa ku darnay qaybta containerka because of classkan grabbing waxaa ku daroynaa containerka ku adgareyn waxaa sameyneynaa in aan ka remove gareyno slideka oo aan ku darno qaybta containerka control s hadda marka inuu shaqeynaya fiirnayna oo yes hadda uu shaqeynaya marka gacanta muddo marka hore waa fidsantaa markii la qabto way soo xirmaysaa gacanta okay sidoo kale imageka wuu boodboodaya marka waxaa ka dhisayna transition ku dareynaa image transition and transform 0.3 second isagana ka dhigaynaa easy in out ka dhigaynaa so marka hadda imageka si qurux badan aad u shaqeynaya okay secondly midda labaad midda sameynayna marka waxay tahay hadda waxay noo dhiman marka hadda imageka hadda uu shaqeynaya oo kii soo wareejiyo intaa ma dhaafaya marka uu soo noqonaya marka waxaa rabnaa marka saan loo wareejiyo oo inta la geeyo inuu gudbo oo kan ku xigo u yimaada rabnaa so marka waxaa sameynaynaa okay marka qaybta jindiga markii la joogo waxaa sameynaynaa inaan dhahno marka const move it by wuxuu la mid yahay leenahay saaranti translate oo laga jaray brief translate marka waxaa leenahay if haddii marka hore waxaa u baahan saaranti index inaan haysano saaranti indexna wuxuu la mid yahay saaranti index wuxuu la mid yahay indexka markaas aan haysano oo slideka markaas la marayo indexkiisa tooja startiga argumentaan ugu soo qaadana kana marka indexka then waxaa siinay saaranti indexka ku shubano marka waxaa sameyneynaa move it by wuxuu la mid yahay saaran translate oo laga jaray preferred translate oo preferred translate still 0 waaye waxaa leenahay if haddii move it by uu ka wen yahay 100 ama uu ka yaryahay aan leenahay 100 move it by marka uu ka yaryahay 100 waxaa waa macnaha position x-ka meeshaan ka bilaabanaya markastoo intii uu sii gudbaa minus oo marka sii galaya marka haddii markaas uu ka hoos maro 100 minus 100 uu ka hoos maro markaas slideka marka dhacayo inaa wareejinay markaas tegaysaa macnaha sidoo kale qaybta kale markuu u gudbaa waxay tahay in markaas balaas ay tahay qaybta markuu u gudbaa markaas ay minus tahay marka waxaan leenahay 100% hadduu markaas ka yiraahdo iyo markaas condition kale ku xireynaa oo ay tahay marka
inuusan ahayn sawirka ugu dambeeya oo markaas imageka ugu dambeeya midkan oo kale saasaa marka loo wada isaga ugu dambeeya marka waxaan rabnaa inuusan sii gudbin oo maadaama uusan sawir kale ka dambeynin inuu meeshaas ku ekaadaa marka rabnaa marka waxaan leenahay sidoo kale saaranta index ay ka yar tahay slides sawirada markaas dhammaantood dotlinks lagu ogaanaya intay yihiin slides dotlinks -1 maadaama marka slideska uu array yahay arrayda markaas ay 0 ka bilaabanayso dotlinkskana markaas uu sheegayo markaas tira caadi ah oo markaas uu sheegayo saaranta index marka si aan walba bardhigno oo indexka ay sheegaysa arrayga markaas ay ku jiraan sawirada arrayna 0 ka bilaabataa halka slides dotlinksna uu soo saarayo tirada guud caadi soo 1 ka bilaabayo marka -1 aan leenahay marka way isla ekaanayna markaas haddii markaas dhacdo waxaan sameynaynaa marka saaranta index inaan hal ku kordhino +1 aan leenahay sidoo kale waxaan leenahay if haddii move it by uu ka weynaado markaas 100 markii dhinacan loo gudbiyo taa markaas qaybtan kale markii loo gudbo uu ka weynaado 100 sidoo kalena saaranta indexna uusan ahayn markaas saaranta index uu ka weyn yahay 0 maadaama marka inta loo wado midka uu dambeeya uu kan yahay uu 0 markaas ka bilaabanayo waxaan leenahay marka saaranta indexna uu 0 ka weyn yahay marka waxaan sameynaynaa inaan minus ku sameyno saaranta index -1 hadda markaas save dhahno save dhahno functionka markaas inoo sameyn lahaa rotationka marka sameynaynaa waan leenahay move by index functionkan hadda sameynaynaa marka move by indexka marka wuxuu sameynayaa function move by index waxaa inoo sameynayaa marka inuu markaas uu ku garaaco inner windowga dhiskiisa markaas marka waxaan leenahay saaranta index saaranta translate waxay lamid tahay marka leenahay saaranta index oo lagu dhiftay window dot inner width no inner width marka maynaysaa siinaynaa maadaama markaas side loo wadayo maynaysa markaas siina marka waxaa sameynaynaa preferred translationka inaa marka hadda sid gareeno oo wuxuu lamid yahay leenahay saaranti translate isagoo marka hadda ajee gareeno marka inta loo sii wado ilaa 100 markii la geeyo inuu gudbaayo oo gudbay kala yimaaday then hadda war ordaya marka waxaa sameynaynaa inaa transition marka inaa u fiirino inuu leeyahay sliderka marka transition u sameynaynaa transition transform 0.3 second easy in out sidaas marka dhana marka hadda waxaa qaladna marka errorkan haystaan wuxuu yahay waxaa qaladna marka si translate-ka inta ka wacnaa marka maadaama saaran translate-ka hadda sidaa gareynay waxaan leenahay si translate taswiig marka haddaa fiirino okay it's working now fine okay now it's working good
okay هذا project كان all done waaye iyo 5 picture ku jirto project intaan ku eegaya marka practice garay xoogaa wareer waa qayb JavaScript markii la sameynayo previous translation iyo current translation iyo start position iyo dhammaan inaa ku wareerta macquul ah marka la doo practice samee intaan ku eegaya marka project maanta markii shaashada soo weynayna fiirinana refresh daanana everything is working fine mid walbaba so in phone marka refresh daano kasto marka okay marka hadda project intaan ku eegay wassalaamu calaykum